Wadamada gaashaanbuurta NATO ayaa kulan madaxeedkooda waxa uu dhici doonaa toddobaadka soo socda ka oo uu qorshihiisu yahay inay ka soo qayb galaan madaxda wadamada ku bahoobay isbahaysigan ha yeeshee waxa ay isbedel ku sameeyeen waqtiga iyo maalmaha uu soconaya shirkan oo markii hore qorshihiisu ahaa inuu socdo 3 maalmood. Arrintan ayaa timid kadib markii ay soo wajahday qabanqaabiyaasha shirkan in madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu ku caajiso shirka oo saacado badan inuu socdo laga yaabo sidaa darteedna uu isaga baxo shirka oo socdo. NATO ayaa shir madaxeedkan u qorsheynaysa inuu socdo 3 maalmood si taa la midana uu saacado badan u socdo si arrimo waaweyn oo xasaasi ah meel la iskula dhigo. Ha yeeshee shir madaxeedkan ayaa la qorsheeyay inuu socdo waqti ka gaaban iyo maalmo ka yar intii hore loo qorsheynayay si uusan ugu caajisin madaxweynaha dalka Mareykanka oo uusan kulanka oo socdo isaga bixin. Go'aankan ay gaareen guddiga qabanqaabada kulan madaxeedka NATO ayaa yimid kadib markii madaxweyne Trump uu ku caajisay shir madaxeedkii G7 halkaas oo uu isaga baxay shirka oo socdo oo aan la soo afjarin danihiisana raacday dalkiisana ku laabtay. halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdullaahi Shiine.